xukuumadda Soomaaliland ayaa maanta la wareegtay cutubyo ciidamo iyo gaadiid tiknika oo ka tirsanaa jabhaddii uu hogaaminayay General Caare oo maalin ka hor u soo gabagaboobay heshiiskii dhexdhexaadinta jabhaddaas iyo xukuumadda Soomaaliland waxaana munaasabadii ay xukuumaddu kula wareegaysay ciidamadan jabhadda ka tirsanaa oo lagu qabtay deegaanka Karinka ayna ka soo qayb galeen madaxda maamulka heer gobol iyo degmaba ee Ceerigaabo saraakiil heer qaran iyo heer gobolba isugu jiray oo ka kala socday ciidamada qalabka sida madax dhaqameed culamaa u diin xildhibaano haween dhalinyaro iyo waxgarad kale oo tiro badanba waxa ugu horeynba halkaasi ka hadlay gudoomiyaha deegaankan Karinka Maxamed Ducaale Case iyo sarkaal ka tirsan ciidanka jabhaddan ee xukuumaddu la wareegtay aad waxaan ugu mahad celinaynaa raggan yeelay tolkood inay jabhadeynta daayaan waxaan u mahad celinayaa dadweynihii ka qayb galay hawsha iyo nabadgelyada qoladaasna waxaan leeyahay jabhadda ku soo dhawaada gobol tuuladiini goobtiini qarankeeni dawladeeni waxaanu nahay anagu ciidankii jabhaddii dulmidiid ee General Caare maanta waa maalin weyn oo laga shaqeeyay nabadda waxaanu si rasmi ah ugu biiray ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu diyaar u nahay inaanu ciidanka iyaga iyo xuduudayadaba aanu isla dhinac taagno Jamhuuriyadda Soomaaliland waxyaguna halkaasi hadallada isaga dambeeyay maayirka degmada Maydh Xuseen Sheekh Cabdiraxmaan maayirka degmada Ceerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur gudoomiyaha bisha cas ee gobolka Sanaag Chief Caaqil Axmed Kulkulli iyo xubno kale oo isugu jiray madax dhaqameed gudidii dhexdhexaadinta jabhadda Caare iyo xukuumadda mas'uuliyiin iyo waxgarad kale waxaana hadalladoodii kamid ahaa waxaan codka aan ku hadlayo ku sheegayaa maanta dalka amaba degmada Maydh iyo wadadeedii dadka waxaan u sheegayaa inay tahay dal hodana una baahan in la maal gashado haddii anaga waxna la saari jiro nolon jiray nabadday hortaagan yihiin nabaddii halkaasay taallaa waa dhammaatay ciddii damba nabadda farafaraysta dayadana laga markaa isugu nimaadno waxaa maanta kubaddu taallaa dhinaca dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa nala odhan jiray waddadiinu waa xidhan tahay mashruucii waa idinka bedelaynaa dekadii idinkaa xidhay mashaariicdii idinka ishortaagay annagu furray xaggayaga waa ka dhammaatay annaga xaggayaga waa ka dhammaatay hadday dib u dhacdo dawladda u qoolan iyadaana ku ceebaysan anigoo ku hadlaya afka magaca guddida nabadaynta heer qaran waxaanu leedahay waxaanu maanta idinku bushaaraynaynaa nabaddii adkayd ee laga cabanayay ee laga baqayay inaanu maanta soo afjarray oo ay halkaa fadhido waxaan leenahay mudane madaxweyne waana kaa Ceerigaabona waa taa wixii xaggaaga jiray ay habsaamin annagu waxaanu ciidankii aanu dhexdhexaadinta ka ahayn ee jabhadda ahaa ee korneylku nagu wareejiyey waxaanu ku wareejinaynaa sidii taliyihii ciidanka jabhadda ee halkan ka hadlay uu yidhi iyana hadday nala qaateen annana waxaanu la qaadannay halkii aanu u wadnay inaannu gaadhsiinno oo aanu ku wareejinayno maamulka gobolka iyo ciidamada qaranka halkan jooga oo wakiilka ah dawladdii waxaan leeyahay maanta raggaasi iyo dadkani iyo deegaankan iyo dadweynaha Soomaaliland dhammaantood waxay u baahan yihiin waxa aynu haysanno ee kooban ee miiska inoo saaran in loogu cadaalad furo waxaynu soo afjaraynaa colaadii baa dhammaanaysa nabadgelyaynu ku waseexanaynaa madaxweynaheena suuqa mari doona isagoo bilaabori gaadha haddii sidaasi ay cadaaladdu inoogu dhaqanto waana ka aynu rajaynaynaa inaynu gaadhno dhammaanteen in qof kasta oo reer Soomaaliland iyo meeshii danqasha ka jirtaba aynu bustaha saarno oo gacanta marino oo dhibaatada dhammaystirno garadag baan joogay aniga gudoomiye gobol Maxamed Kaahin hadalkiisa waad maqlaysay inuu yiri 15 milyan baa arinta iyo ceelaf weyn u xalimnaa yaan la idinka waayin waxaan ku gabagabeynayaa aniga laftaydu waxaan halkan u imi inaan reerabtigay ku bogaadiyo guusha ay qaranka u soo hooyeen mashruucii ugu weynaa ee gobolka Sanaag soo galana abtiyadaaba halka ku qaybsanaya u tagbaan siri waxaan ku soo ururinayaa ciidamada annagu shalay baanu la wareegnay janankii nagu hogaaminaya nagu wareejiyay annaguna maanta waxaanu ku wareejinaynaa qaranka iyo dawladda iyo madaxda halkan fadhida
waxaanu leenahay ragga madaxda xilka maanta haya waxa weeye in cadaalad darrada ciidankaasi ka baxay ka biiya balasaabka gobolka Sanaag oo ku suntan nabadda Soomaaliland iyo maayirkeeda oo nabadda ceelaf weyna aad iyo aad buu Maxamed Axmed Caalin uga qayb qaatay iyo saraakiisha ciidanka qarankuba aad baan u hambalyeeynaa waxaan leeyahay hawlka madaali wali waa hogadii dhowr meelood baa haray oo ciidamadu joogan iyaguna waa soo kaba raacinaynaa waxa iyaguna halkaasi hadallo kooban ka soo jeediyay taliyayaasha ciidamada booliska militariga asluubta iyo ilaalada xeebaha ee gobolka Sanaag kuwaas oo dhinacooda soo dhaweeyay ciidamadan jabhadda ka tirsanaa ee ku soo wareegay gacanta xukuumadda Soomaaliland ugu dambeyntiina munaasabadaas waxa ka hadlay gudoomiyaha guddida dhexdhexaadinta jabhadda Generaal Caare iyo xukuumadda ahna siihayaha xilka suldaanka guud ee beelaha Garxajis Suldaan Cabdiraxmaan Cabdullaahi Awgood saraakiil sare oo ka socotay taliska guud ee ciidamada qaranka Soomaaliland يا برصابك قبل كسران محمد أحمد عالم تيم برو إذا كمان تانو قرميننا مسؤولين تقارن كوحنا وشيء إلى مدحوينا إلى تليا إذا ماذا تلياش إذا ماذا إذا كقارن كوردن رجوع كقريب قادنا إياه من التريقة بوليسكا أسلوب تبدأ سيده هو الله شيء إدي كلا أمريكا حرفض له يجون هو حويان وا لو ديار بالويه ينوي ديار جروبيان رجع سوسول وين بيجي كباهي هاي رجع سولارين بيجي كباهي هاي warwacana ka gudbisaan buu idin ka baahan yahay tixgelin buu idin ka baahan yahay reer ahaanna dhamaanta iyo xukuumadda soo dhaweyn baan uga baahnahay waxaanu leenahay mar haddii wixii ilaahay aanu tabanay mar haddaanu ka soo noqonnay oo maanta waxaan ku inta yadii cadhootayna annagu aanu isu luqun laabnay oo aanu u diyaarnahay in qaran mida la helo waxaanu leenahay xagga dawladdana ha laga helo ciidanka waxaan leeyahay walaalayaal waan idin soo dhaweynaynaa ciidamadiinni baad ku soo biirteen nabaddii baad qaadateen dadkiinni baad muxuuha u timaadeen waxaad aqbashaan mar haddaad sidaad doorateen inaad hadda wixii laga bilaabo saacaddan aynu joogno inaad sharciga u hoggaansantaan wixii ciidamada lagu dhaqo oo xuquuqa waad helaysaan anigu odhan maayo wax kale waxaa maanta ka mid tihiin ciidanka qaranka Soomaaliland ma aha ka militariga oo qura bilayska ka mid noqon doontaan asluubta ka mid noqon doontaan kabadda ka mid noqon doontaan waxa la yaalay wixii kale xirfad gaar ah leh shibile aqoon lehina qof waliba meesha uu qalmo ilaa intayna la gaariso kaga hadhimayna waanu la wadaynaa waxaan idin ballan qaadayaa anoo ku hadlaya magacayga iyo ka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee aan anigu calanka u sudan kaga wakiilka ahay gobolkan in waxa la yaalay wixii tabashaa ee aynu daweyn karro aanu daweyno جابر سعيد على جابر بلشاوي سان تي في عرقابو